wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ayaa sheegtay in la filayo in roobab dhexdhexaad ah iyo roobab culus ay toddobaadkan ka da'aan deegaanada kala duwan ee dalka iyadoo bulshada reer Somaliland looga digay khasaaraha ka dhalan kara roobabkaasi looguna baaqay inay taxadir ka muujiyaan arrintaasi. waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha Somaliland ayaa qoraal ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in roobab dhexdhexaad ah oo lagu diirsaday ay toddobaadkii la soo dhaafay ka da'een inta badan gobolada galbeedka iyo qaybo ka mid ah bariga dalka. sidoo kale waxaa la saadaalinayaa inay roobab dhexdhexaad ah iyo kuwa culus ay ka da'aan gobolada dalka intooda badan iyadoo sida waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeruhu sheegtay in roobabka ugu badan la filayo inay da'aan maalmaha soo socda ee horraanta bisha May, gaar ahaan 2 ilaa 3 bisha May. waxaana qoraalkan saadaasha lagu sheegay in gobolada roobabka aadka u culus ay ka di'i doonaan ay ka mid yihiin gobolada Maroodi Jeex, Sanaag iyo Togdheer, taasoo loo baahan yahay in bulshada goboladaasi ay sameeyaan taxadir dheeraad ah, gaar ahaan inay iska ilaaliyaan meelaha godan ee biyo fadhiisinka iyo dhammaanba meelaha biyo mareennada si looga hortagi karo khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo ka dhasha daadadka ka soo rogmada roobabkaasi la filayay inay toddobaadkan ka da'aan Somaliland. guud ahaan deegaanada Somaliland ayay muddooyinkii ugu dambeysay ka taagneed qayladhaan abaareed taasoo saameysay ku dhowaad 2 milyan oo qof, balse waxaa la filayaa haddii roobabkani ay si fiican uga da'aan deegaanada dalka in abaartaasi laga soo kaban doono. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV, Hargeysa. qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 150